xafiiska laanqeyrta cas ee magaalada Gaarisa qaybta gurmadka degdega ah ayaa qalab isugu jira maacuun bustayaal teendooyin bacaha roobka iyo saabuun waxay saakay ugu deeqeen barakacayaasha xaafadda Ziwani ee ku sugan duleedka xarunta tababarka beeraleyda ee loo yaqaano Farmers Training Center ee magaalada Gaarisa waxaana halkaa ka hadlay gudoomiyaha countiga Gaarisa James Kianda. Basi asanteni kwa majina, naitwa James Kianda, County Commissioner Garissa. Niko pamoja na viongozi wachache, niko na kiongozi ambaye anasimamia National Drought Management Authority Bwana Isa. Niko na Bwana Dubo ambaye anasimamia special programs kwa county government ya Garissa. Niko na mtawala ambaye anasimamia area hii ya Bakuyu Ziwani. Niko pamoja pia na regional coordinator wa Red Cross Madam Alima, na pia tuko na team kutoka kwa Red Cross ambao ni volunteers ambao wamekuja kutusaidia. Nakumbuka ya kwamba hivi karibuni kulinyesha mvua ambayo iliweza kuadhiri zaidi ya watu 2,000 ambao wanaishi karibu na mto hapa Garissa. Na pamoja na hao watu ambao waliathirika, pia tumeweza kupata kuadhirika pia kwa mashamba yetu kuingiliwa na Rohim. Waxaan ka socdaa dawladda countiga khaasatan special program. Maanta meeshan waxaa lagu qaybinayaa alaab ay noo keeneen Kenya Red Cross. Kenya Red Cross waxaa weeyaan hay'adda u xilsaaran emergency-ga. Marka waxay keeneen ilaa 205 family oo Ziwani iyo 81 family oo Bakuyu ay u keeneen alaabta maacuunta. Maacuunta sidii waxaa waaye kuwa bacda guriga la saaro, alaabta cuntada lagu karsado iyo blanket iyo marka waxaa jira fadhigan aan qabanayno markasta waa qabanaa. Dawladda countiga waxay keenaysaa raashin, waxay keenaysaa oo kale biyo keenaysaa iyo mas'uuliyiin dadka isticmaali lahaa. Marka arrimahan waxaa isbeegalayna mas'uul county commissioner Garissa County. hay'ado kale oo yaryarna waan aragnaa oo hadda keenayaan sida irdo oo kale sida hadda irdo oo kale arkay. Marka waxaan rabnaa in la keeno ilaa 2,000 oo family ay hadda dhibka u gaarsiisan yahay. marka arinta way socotaa waxaana way sida hadda loo bilaabay waliba hadii uu soo bato biyaha soo bataan dadka uu soo barakaco arrimahaas aan qabanayna sida biyaha iyo cuntada in lagu dadaalayo dadka. arrimaha isbitaalkana waxaa ka shaqeynaysaa ministriga departmentka oo caafimaadka qaybta caafimaadka ayaan u sheegnay sifada cudurka iyo pneumonia iyo waxyaabaha cudurrada biyaha ka dhashaan